ciriiriga ka jira wadada wadnaha wuxuu u muuqdaa midaan kala joogsi lahayn waqti walba laga bilaabo marka uu waagu dilaaco ilaa gabaldaca. bu'da juqraafi ahaaneed oo ay ku taalo iyo la'aanta nidaamka taraafikada wadooyinka oo aan sidii looga baahnaa u shaqaynayn ayaa ka dhigtay mid maritaankeedu kugu qaadan karo ku dhowaad nus saac inaad ku dhaafto. balse mar walba oo laga hadlayo ciriiriga ka jira wadadan lama xiriirto oo keliya tirada gaadiidka isticmaala. waxaa jira dhowr arrimood oo isbiirsaday taas oo ugu dambeyn dhaxalsiisay wadadan inay noqoto mid dadweynuhu ay dhib kala kulmaan maristeeda. dhismaha wadadan oo balac ahaan labadeeda dhinaca isku jiraan ku dhowaad 20 tilaabo marka ay isku fiirdhaafayaan 6 gaadiid oo midkood ugu yaraan uu yahay gaadiidka waaweyn ee xamuulka qaada weli ma ahan dhibaatada qura ee haysata. mushkiladdu waxay mar walba kasoo rogmanaysaa la'aanta nidaamka taraafikada oo halkii ay ahayd inay kala xadeeyaan baabuurta afarta dhinac uga kala imaanaysa isgoyska Bakaaraha iyo Holwadaag aanba halkan si rasmi ah uga shaqaynin. dhibta kale ee jirta ayaa ah gaadiidka u badan kuwa xamuulka oo sidii garaash ama deked shixnad lagu rarayo ku dhinac baakiman laga soo bilaabo isgoyska Siinay ilaa Tarabuunka siiba inta u dhaxaysa isgoysyada Bakaaraha iyo Holwadaag kuwaas oo ciriiriga ka jira wadadan kasii dhigaya dhibaato aan dhamaad lahayn. maadaama jidka wadnaha oo awalba ahaanshaha halbowlaha caasimadda uu yahay awgeed loogu magac daray wadnaha waxaa kale oo muhiimadiisa jid ahaaneed sii xoojinaysa suuqa Bakaaraha oo ku dhowaad maalintii ay usoo shaqo tagaan nus milyuun muwaadiniin ah. marka la joogo xilliyada ciidaha iyo u diyaargarowga bisha barakeysan ee Ramadaan tiradu way kasii kordhaa. caqabadaha ay sababayso wax ka qabasho la'aanta ciriiriga ka jira wadada wadnaha waa dhowr. ku dhowaad daqiiqadaha kooban oo ay isku xayirmayaan gaadiidka dadweynaha waxaa dhibteeda si dhab ah u dhadhamin kara ardayga u degdegaya goobtiisa waxbarashada, ganacsadaha raba inuu dalab looga baahnaa halhaleel ku gaarsiiyo macmiilkiisa, iyo qof laga yaabo in bukaan isbitaal uga xanuunsan uu isleeyahay ka gaarsii. waxaa intaas ka badan oo jiri kara dhaawac lagu walwaalayo ambalaasta oo haddii aan laga gaarsiin gurmad degdeg ah halis ugu dhiman kara ciriiriga ka jira wadada. maamulka degmada Holwadaag oo mas'uuliyadda ugu badan ay fuulayso xil iska saarid la'aanta ciriiriga ka taagan wadnaha waxaa la gudboon inay si muuqda uga falceliyaan dhibaatadan. muhiimad weyn kuma fadhiso in marka gaadiidku ay madaxyada isla galaan ay soo diraan ciidamo xabada ku kala fura wadada taas oo sida muuqata laftigeeda halis geeri ku siman gaarsiin karta dadweynaha isku xoonsan. haddii saddexda degmo ee Wardhigley, Holwadaag iyo Hodan ay iskaga yimaadaan xal u helidda ciriiriga ka taagan jidka dheer ee wadnaha ugu yaraan waa lagu guuleysan karaa suuragelinta nidaam xal u noqda ciriiriga daba dheeraaday ee ka jira wadada. inaan waxba laga qabanse waxay dhabtii culays aysan sii mahadin doonin dadweynaha ku noqon doontaa ku socdaalka wadadan muhiimka ah.